بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu tahay 21-ka bisha afraad 2022 oo maalin khamiis ah waxaan ku guda jirnay maalmihii shaqooyinkeena caadiga ahaa si guud waxa iska diiwaan gelisay musharaxnimada guddoonka golaha aqalka sare 12 musharax oo 3 musharax iska diiwaan gelisay gudoomiye ku-xigeen koowaad iska diiwaan gelisay 2 musharax iyo 7 musharax iska diiwaan gelisay gudoomiye ku-xigeenka labaad si guud marka waxay noqotay lambarka 12 musharax oo iska diiwaan gelisay aqalka sare maanta oo saacadu tahay 4 galabnimo ayay soo xirantay diiwaan gelinta musharaxiinta maalinka sabtiga waxay noqonaysaa maalinka hadal jeedinta musharaxiinta 26 bisha oo aan ku balannay oo jadwalka sidoo ahaana waxay noqon doontaa maalinka doorashada guddoonka aqalka sare insha Allah waxay rajeynayaa guul aad u mahadsantihiin.